mashruucan biyadhaaminta loogu sameynayo 30 kun oo qoys oo kamid ah qaxootiga ku jira kaamunka ku yaala Beledweyne iyo nawaaxigeeda ayaa soconaya muddo 90 cisho ah waxaana maanta mid kamid ah kaamunka ugu weyn Beledweyne mashruucan ka daafuray wasiirka tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wasiirka tamarta iyo biyaha Hirshabeelle Shucayb Cabdikariin Muumin oo daafuray mashruuca biyadhaaminta ah ayaa sheegay in tani looga gol leeyahay in dadka danta yar ee aan awoodin in biyaha macaan ee lacagta la kala siistay ay iibsadaan gurmad biyadhaamin ah oo bilaash ah loo sameeyo waxa uu xusay in garab ay ka heleen wasaaradda biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya biyadhaamin ay ku jawaabayno biyarida ku jirta degmada Beledweyne waxaynu maanta joognaa waa goobaha ay u soo barakaceen barakacayaasha oo kamid ah oo aan ka joogno dhammaan maamulka degmada iyo gobolka iyo anigoo wakiilada wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabeelle waxaan ka jawaabnaa baahidii biyarida ku jirta deegaanada waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala biyo nadiif ah daawo ugu dhigo waxaan kaloon marwayna ugu mahad celiso hay'adda UNICEF iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee qaranka ayagoo la garab istaagay ama nala soo baahiyaha gaarka ah iyo biyarida ku jirta maanta aan leeyahay oo aan ka faa'iideysto dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan iyo hay'adaha ku shaqada la biyadhaaminta inay maanta ugu faa'iideeyaan marxaladan ku jirno inuu fiirsan banaanka qayb istaagin ay ugu faa'iideeyaan dadka walaalaha danta yar ay uga soo gaaraan biyarida ku jirta ay uga soo gaaraan biyadhaamin aad u fiican oo degdeg ah maanta waxaynu joognaa marxaladii biyarida ayadu biyaha u baahneen ma joogno maalintii maanta laga hortagi lahaayeen cudurrada waxaan maanta taagana waa maalinta biyarida saas u socotana waxaa qasab in cudurro dilaacaan gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Axmed Food Cade gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taako iyo gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Cabduqaadir Arwaax iyo xubno kale oo kamid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan oo munaasabada mashruuca biyadhaaminta ah lagu daafurayo goobjoog ka ahaa kana hadlay ayaa soo dhaweeyay biyadhaamintan qaxootiga Beledweyne ku nool loo sameynayo wasaaradda biyaha iyo tamarta oo Hirshabeelle oo ugu deeqday degmada Beledweyne biyadhaamin iyadoo biyaha loo qabo aad iyo aad dhibaato oo biyo loo qabo maanta biyo soo gaarsiiyay ayaan maanta mataqaanaa halkaan ku daafuraynaa inoo keentay oo loogu talagalay ilaa 90 maalmood 30 kun oo qoys in biyo laga siiyo hadii Ilaahay yiraahdo waa uga mahad celinaynaa shaqadaas ay qabsatay dowlad goboleedku way ka soo jawaabtay baaqyadii aan hore u dirayna way ka soo jawaabtay run ahaantii wasiirkeena iyo dowladda hadii Ilaahay ku roon yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle baaqyadii runtii way ka soo jawaabeen waana soo dhaweynaynaa haddana nala joogo wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowlad gobolka Hirshabeelle oo runtii ka soo jawaabay cildhaantii ka soo yeertay gobolka Hiiraan guud ahaan gaar ahaan degmada Beledweyne oo ku aadan biyo la'aanta baahsan ee ka jirta degmada iyo dhibaatada ku aadan xagga catashka iyo dhibaatada ka jirto runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dowlad gobolka Hirshabeelle wasaaradda tamarta iyo biyaha inay ka soo jawaabtay oo maantana meeshaan aan u joogno oo ku daafurayno barnaamij biyadhaamis ah oo socon doonto muddo 90 maalmood ah muddo 3 bilood ah biyahaas oo la dhaamin doono ayaan maanta ku daafuraynaa waxaan u maleynayaa reer Beledweyne inay ka faa'iideysan doonaan biyahaas ilaa 30 kun oo qoys inay mataqaanaa ka faa'iideysan doonaan ayaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo aadaan ugu faraxsanahay runtii waa tilaabo hore loo qaaday oo guud ahaan Hirshabeelle ay hore u qaaday ama wasaaradda tamarta ay hore u qaaday aniga ku hadlayo afka isku duwa wasaaradda tamarta iyo biyaha Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan waxaan ugu mahad celinayaa dadaalka dheeraad ee wasaaradda ay soo muujisay maadaama maalmaha ugu dambeeyay ay ka jireen magaalada Beledweyne xaalad biyo la'aaneed oo aad u ildaran sidaas daraadeed biyadhaamintan oo bilaabanaysa 4 Abriil ilaa ay ku tahay June 4teeda waxaan leeyahay waa tilaabadu aad loogu farxo waa arrin macquul ah aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa anigoo maanta fursadan qaali ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay wasaaraddeeda maadaama wasiirka ila joogo tilaabada aad qabato waa mid lagu farxo waa mid macnaha ee bulshada reer Hiiraaneed wakiilka u tahay waa inaad si laba jibaartaa waa inaad ummadda reer Hiiraaneed ceel riiga u qodaa
waa inaa gobolka hiiraan ay deegaanada hirshabeelle baahida biyo-la'aanta ka jirta wax badan ka bedeshaa. Mudane wasiir marka waxaan ku leeyahay kusoo dhawow. webiga shabeelle ee dhexmara beledweyne ayaa aada u biyo yareeya waxaana isbedelay dhadhanka iyo muuqaalka biyaha webiga. shacabka ayaana bilaabay in biyo macaan oo booyado looga keeno deegaanka ceelgaal ay iibsadaan kuwa oo lacag u dhexaysa $3 ilaa $5 halkii fuusta la kala siisto. waxaana jira dad ka kooban qaxooti iyo danyar kale kuwaasi oo aan awoodin in biyaha macaan ay iibsadaan ee lacagta la kala siisto, kuna qasban in biyaha qaraare ee webiga xilligan kasoo burqanaya ay cabaan. mashruucan ayaa la rajaynayaa in haddii uu sida saxda ah u fulo wax badan uu ka bedelo baahiyo dhanka biyaha ah oo ay qabeen qaxootiga iyo danyarta ku nool beledweyne iyo nawaaxigeeda. maxamed ibraahim siyaad, TV-ga caalamiga ah ee Hiiraan Bile, Beledweyne.